Soomaaliyey maalinba maalinta xigta waxaa isa soo tarayaan dhibanayaasha amaba hooyooyinka Soomaaliyeed dhibanayaasha u ah xanuunada sixirka isha jinka. Haddaba ma isweydiiseen waxaa ku badiyey dumarka Soomaaliyeed ciladahaasi? Inta badan waxaa la wada ogyahay diinteena Islaamka iyo cilmiga maadiga ahba lagu caddeeyey in qoyska ama qoys walba uu lafdhabar ay u yihiin dumarka Soomaaliyeed ama gabar Soomaaliyeed ay lafdhabar u tahay, sidaasina ay ku askumaan amaba ay ku beermaan amaba ay ku tarmaan ummad iyo dad Soomaaliyeed amaba ummadda ama dadyooga Soomaaliyeed ee ku kala nool caalamka daafihiisa. Si markaa loo dabar jaro nolosha qoysaska Soomaaliyeed, ilayse qofka iimaanka aan lahayn ee xaasadka ah shaydaankana u shaqaynaya waxa uu abbaarayaa xubinta ama shaqsiga ugu muhiimsan nolosha ama farxadda guri Soomaaliyeed. Maxaa yeelay haddii walaashaada ama hooyadaada ama eedadaada ama habaryartaada ama qof dumar ah dhibaato loo geysto, waxaa ku gelaya dareen ka duwan midka aad u qaadi lahayd ninka ragga ah ee boqolooga ahi. Waana xanuuno ama dhibaatooyin ay u nugul yihiin hooyooyinka Soomaaliyeed, kuwaasoo noloshooda maareyn lahaa caruur badan iyo dhalinyaro badan oo mustaqbalkooda la beylihiyey ay toosin lahaayeen, waxna ka qaban lahaayeen waxbarashadooda iyo noloshooda, ayaa waxaa dhexda u galay manaxayaal aaminsan wuxuusan Ilaahay subxaanahu wa tacaala uusan raali ka ahayn, kuwaasoo dhibaatooyin la beegsanaya mar kasta ama goor kasta dad Soomaaliyeed oo u badan hooyooyin, gabdho oo dhalinyaro ah, markaasi reero cusub lahaa reerkii laga dumiyey ama qaarkood qofkii jeclaa laga didiyey. Si kastaba Soomaaliyey, waxaan idinka codsanayaa inaad u soo duceysaan dadka Soomaaliyeed ee la dhiban xanuunadan, sidoo kalena aad Ilaahay subxaanahu wa tacaala aad u baridaan cid alaala cidda xanuunadan la dhiban inuu eebbaweyne caafiyo, halka aad hawaar ku gantaan inta uusan Ilaahay hanuunka la dooneynin ee ummadda dhibaatada ku haya inuu eebbaweyne ummadda ka qabto. Haddaba markan aan idin kala dhexbaxo gabadhan Soomaaliyeed oo qiirigelisay qaliimada lagu sameeyey iyo dhibaatooyinka weli daba taagan ee ay ku hayrshayaadiinta, balse eebba soo haleeshiyey xarunta cilaajka Daarutooba faraceeda uu ku leeyahay Sheekh Rusheeyare isgoyska Baarwax ee magaalada Muqdisho, halkaasoo sida caadada ah uu u fadhiyo walaalkiisa Sheekh Maxamed Jinicijiye loo yaqaano. Waana sababta igu kaliftay in aan si qiiro leh idinkugu dulmaro maalin walba xaaladda aan hor taaganahay ee aan ku arko ee ka taagan gudaha xarunta, islamarkaasna haysato hooyooyinka Soomaaliyeed ama gabdhaha aan iraahdee siyaabo kala duwan ugu dhiban xanuunadan ruuxiga ah, laakiin aan marka dambe ku farxo sida tufta uu u waafajiyey iyo Qur'aanka Alleh siduu ugu caafiyey markii ay soo haleelaan gudaha xarunta Daarutooba. قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا حسب ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. حسب 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 يا قربي emang lesa ya emang lesa hata ya قربي hata قربي كم كيلو ya ما إلى تنسى ya إلا مرة بعد في سدوما إما سدوما راتي أفر سدوما راتي
حكوا لي ستة قبلها أفضل سوا كو حكى أفضل سوا ضد احترامي يسوي يعني كو حكى له كل شيء وقلبي فرنت هاي ما شاء الله ودي ويسي يا ما قصر أبو جبتها يا labada kun toban iyo sideedii baa soo gashay ilaa soo gashay ilaa hadda ku jirtaa ya waa la idin qaalay kow ay sidii soo noqotay ay maqlaysaa markii la qalayay maxaa lagu soo sheegay laga qalay ya bura lagu soo sheegay buro miyay qabtay oo ku taalay mise ilkaas ka dhigay ya maqalin wax buro maysa qabin wax buro aan kuma sakoolin ilkaas ka dhigay ya umaleed markaas buradan ilkaas ka dhigay waana la qalay kow markii la qalay ku sii jirteen mise waa ka baxdeen idinka ma ku sii jirteen mise waa ka baxdeen waa ka baxdeen waa ka carabteen kow goormay ku soo laabateen hadda labada ku soo laabateen markay dhashay baa ku soo laabateen goormay dhakhtar tagtay hadda ay dhakhtarka goormay tagtay oo hadda ku soo sheegay burada bishaan dhamaanays dhexdeedii tagtay muxuu soo yiri markay dhakhtarka qaliin maxaa laga qalaya ya buro labaad ku soo sheegay waa la qalaya wuu yiri gabadha ma bura ku taala mise idinka iska dhigayo riyaa ya idinka iska dhigay wax bura ku taalo ay maqlaysaa labo waa nabadgelinaynaa iyo ma nabadgelinay ya hadda hadday tagto dhakhtar isla haddana hadday tagto ma buro kusoo sheegayaa mise burada halkee looga soo sheegay ya dhuunta looga soo sheegay markii hore la qalayin xagee ahayd isla dhuuntay ahayd haye dhuuntaada maxaa dhibaato u geysateen ya markay xanaaqday xoogaa ceejila uga dhigaas markaa xanaaq ceeja ugu dhigtaan cunadii iyo cabidan maxaa ku samayseen waa saxan ya waa ku saxanay markay wax cun maad way ku saxanaysaa biyahana malaq karto oo cariiri biyahana malaqata cariiri ku tahay haye cantuufteedana loosto ku saxataa cantuuftana way ku saxataa wax dhan ma laqi karto ay maqlaysaa had dartaan wax ma laqaysa haamamay ya ma idinku arkaya haddaan idinku arko ya haddaan idinku arko cantuuf iska daaye litir biyaha hadda ma cabaysa haamamay ya hadday cabi weyso ya xagee kala xanuunsay gabadha ya wadnaha waa xanuunseen xagee kala xanuunseen labo ma nabadgelaysaan haamamay justan now caafimaad ma dareemaysaa ya caafimaad ma dareemaysaa runtaada waxay doonto ma laqaysaa waxay doonto ma cabaysaa dhakhtar hadday ku laabato burma lagu soo sheegaya ya soo raac farta raac farta bas raac farta fur farta fur waxay doonto cunaysaa ima farta dhaqso yaa ku harayo iska gu taaba xaggee joogtaa taaba gacanta kale ku taaba dadku arkaya meelta ma xanuunaysaa iska gu waa duubistii farsamadii codantii anigoo maxamed yuulka inta warbixinta lamida kulmi doona asxaabay nabadgelyo